asalaamu calaykum. nabad dushaada ha ahaato walaal, meel walbo aad dunidan aad ka joogto kusoo dhawow mar kale iyo macluumaad kale oo ku saabsan arrimaha sirdoonka. macluumaadyadeenna inta badan waxaan kusoo qaadanaa taariikho iyo warbixinno dhace kuwaas oo baraha internetka ku jira, laakiin keliya u baahan inaan ka dhigno afkeenna hooyo. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka ku xihan barteeda youtube-ka ee Marcadda Show, kuwaas oo ila wadaaga inta badan macluumaadyada xasaasiga ah ee u baahan inaan luqadeenna hooyo aan u bedelno. waxaa kaloo aan u mahad celinayaa shakhsiyaad si gaar ah warbixinada tarjuman iila wadaaga. taxanahan markan waxaan ku eegi doonaa warbixin kooban oo ku saabsan basaasadii xisbullah ee ahayd tii ugu horreysay ee ay ku dhex beereen CIA-da. warbixintani waxaa qoray Majdi Kaamil, waxaana tarjumay Kamaal Axmed Cali. waxay ku bilaabanaysaa: si kasta oo ay hay-addu sirdoonka u awood badan tahay ama tayadeeda iyo waayo aragnimadeeda basaasnimo ay u sarreyso, haddana waa shaki la-aan in marmar iyo marar badanba ay la kulmi karto dhirbaaxooyin xanuun badan, mararka qaarkoodna jiritaankeeda khatar gelin karaya. dhirbaaxooyinka wakaaladaha sirdoonka ku dhici karaya waxaa ka mid ah in basaas meel ay ku darsadeen ama howl ay u direen la fashiliyo, ama in basaas dowlad kale ka socda uu dhex gala nidaamkeeda amni islamarkaana uu basaaso. labadaani xaaladoodba waa ay dhacaan, laakiin ta xanuunkeeda sii badani waxay tahay ama dilaaga lagu tilmaami karaa waa marka basaaska cadowga adeegsanayaa uu yahay ruux wakaalada lagu dhex darsaday oo si rasmi ah uga tirsan, oo weliba ka mid ah dadka awoodda ku dhex leh ee xogaha muhiimka ah ay soo maraan, ama haddii uu u baahda si sahla ku heli karaya warbixinta si uu ugu gudbiyo dhanka kale ee ku darsaday hay-adda sirdoon ee uu markaasi la shaqaynayo. dharbaaxooyinkani oo kale waxaa marar kala duwan ay ku dhaceen hay-adaha ammaanka ee dalka Maraykanka oo lagu tiriyo inay yihiin kuwa ugu tayada badan dunida, waxaana ay tusaale ahaan laga xusi karaa dharbaaxadii CIA-da ku dhacday bishii 11 ee sanadkii 2007 markii la ogaaday in ururka xisbullah ee dalka Lubnaan uu ka dhisani uu ku guuleystay inuu dhex galo oo weliba basaas gaar ah oo ka mid ah xarumaha ugu adkaa amniga dalka Maraykanka lagu keydiyo uu ka helo xogo kala duwan iyo sirtii ugu qatarsaneyd ee sirdoonka oo aan dowladi lahayn ee abad laga helo sirdoonka dalka Maraykanka. xogta aadka xasaasiga u ah ee xisbullah uu helay waxaa ka mid ahayd qorshayaal Maraykanka uu diyaarinayo oo lidi ku ah xisbullah naftirkiisa. xisbullah waxa uu adeegsaday gabar u dhalatay dalka Lubnaan oo inkasta oo ay qaadatay jinsiyadda Maraykanka haddana weli daacad u ahayd dalkeedii hooyo. arrinta xiisaha gaarka u yeeshay dhacdadan sirdoonka Maraykankana fadeexadda u soo hoysay waa in cidda jibisay teedadka amni ee CIA-da ee inta ay basaas ku dhex beeratay xogo xasaasi ah ka heshay aanay ahayn dowlad ka mid a dowladaha waaweyn ee dunida ah iyo xitaa dowladaha taagta daran, balse ay tahay urur ay warbaahinta reer galbeedka xitaa ururnimada ay u quuri waayaan oo Maleeshiya ay ku tilmaamaan. waa xisbullah oo ah urur qaab jabhadeed u dhisan oo ka jira gudaha dalka Lubnaan. waxa uu u taagan yahay in Israa'iil uu ka dhiciyo dhulka ay hore ay xooga uga qabsatay dalka Lubnaan iyo guud ahaan dunida Carabta. jilaaga sheekadan muhiimka u ah oo ah gabadha lagu magacaabo Nada Nadim waxay u dhalatay dalka Lubnaan, waxay u shaqaynaysay xisbullah. waxay sheekadeeda markii ugu horreysay soo shaacbaxday sanadkii 2007 oo ay dowladda Maraykanka iyo dadka Maraykankaba mar kaliya ay ku wada baraarugeen wargeysyada dalkaasi oo ka waramaya. faallooyin kala duwan waxay ka bixiyeen sheekada muwaadinad Maraykan ah asalkeeduna uu yahay Lubnaan oo ay maxkamad la soo taagay kadib markii lagu eedeeyay inay xogo aad sir u ahaa ay u gudbisay ururka xisbullah ee dalka Lubnaan. warku waxa uu sheegay in Nada Nadim oo ka shaqaynaysa wakaalada dambi baarista federaalka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FBI iyo sidoo kale wakaalada dhexe ee sirdoonka Maraykanka ee iyadoo magaceeda loo soo gaabiyo CIA, shaqada ay ka shaqaynaysay labadan wakaaladood ayaana sida ay warbaahintu ay sheegtay u fududaysay in xogo badan oo xasaasi ah ay hesho. markii warkaani la baahiyey ayaa mar kaliya xaalka Maraykanka uu cakirmay. ra'yu caamka ama warbaahinta ayaa doodo iyo muran aad u badan ay ka dhex abuurtay arrintan. dad badan oo Maraykanka ayaa ku dooday in gabadhan xukun adag la mariyo maadaama ay tahay basaasad khiyaamaysay dalkii jinsiyadiisa ay sidatay. laakiin dhanka kalena dad badan ayaa ku dooday in Nada ay ahayd halyeeyad maadaama jinsiyadda Maraykanka uu siiyay aanay ka tirtirin jaceylkii iyo daacadnimadii muwaadinimo ee ay dalkeeda Lubnaan u haysay. in Nada ay ururiso xogta qorshayaal Maraykanka uu la damacsanaa xisbullah kadibna ay ku wargeliso ururka xisbullah ayaa ay dad badani ay ka soo qaadeen inay tahay calaamad muujinaysa in Nada ay tahay gabar daacad ah oo dadkeeda uga digtay khatar kaga soo fool lahayd Maraykanka.
laakiin arrinta yaabka lehi waxay ahayd in dadka fikirkan dambe qabay ay ahaayeen qoraayo Maraykanka ah oo aragtidooda aad loo qadariyo, inkastoo ay sheekada u dhigeen qaab dalkooda ka fogeynaya sumcad darrada ee arrintaani ay ku keentay. tusaale ahaan mid ka mid ah ayaa waxa uu isagu isweydiiyey, ka warrama haddii uu qofkani u ahaan lahaa Maraykan, jinsiyad dowlad kalena sita, oo uu la kulmi lahaa mowqif la midka ah kan ay la kulantay gabadha reer Lubnaan ee Nadda. waxa uu qoraagani uu ku dooday in qof kasta oo dal kale jinsiyadiisa haystaa ay tahay marka uu arko in dalka uu jinsiyadiisa haystay ay dhagar ay u maleegayaan dalkii uu dhiiggiisa uu ka soo jeeday, in qofkaasi uu ku qasbanaado in dalkiisa iyo dabcan dadkiisaba uu u qabto wax kasta oo uu filayo in dhibkaasi soo gaaraya lagaga hortegi karayo ama khasaaraheeda lagu yarayn karo. qoraagani ayaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi, goormee ayuu ruuxa Maraykanka ahi uu khiyaanoolo noqonayaa? ma marka uu ka hor yimaado mu'aamarad ka dhan ah amniga iyo xasiloonida dalkiisa hooyo, shacab iyo dowladba, mise marka uu dalkiisa iyo dadkiisa khiyaameeyo ee uu soo raaco dal jinsiyad cusub siiyey? waxa iyaguna jiray dad kale oo sheekadani Nadda marag uga dhigtay dood ay horeba ay u qabeen oo ahayd in sirdoonka Maraykanka uu intiisii hore uu aad uga daciifsan yahay. marka laga hadlayo la macaamilka dadka cusub ee doonaya inay ku soo biiraan, waxaa ka mid ahaa dad qoraayaal ah oo si weyn looga yaqaana gudaha dalka Maraykanka ah oo ku soo biiray dooda, waxaana ay yiraahdeen Nadda waxay fashilisay ceebaha sirdoonka Maraykanka ee la xiriira dhaliisha ka jirta qaabka ay u shaqaaleeyaan basaasiinta ka howlgalaya goobaha aadka xasaasiga u ah. ha canaananina hana ceebeynina Nadda, nafihiina canaanta. xiriirlaaliyaha guud ee dalka Maraykanka oo markaasi ahaa Stephen Morvey waxa isagana uu mar uu arrintaasi uu ka hadlaya uu yiri, qadiyadani waxay noo sheegaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigaba ay u qaataan shaqaalaha. ma jirto khatar ka weyn in qof shisheeye ahi uu dadaal uu u galo in jinsiyadda Maraykanka uu qaato si uu uga howlgalo hay-ad aad xasaasi u ah oo ka mid ah laamaha amniga ee dowladda. iyada oo aan dib ka arki doonno baaritaanada arrintaani ay caddeeyeen in Nadda ay marka horeba ay ku guulaysatay in ay khiyaamo ay samaysay Maraykanka oo sifo aan sharci ahayn oo aan sax ahaynna ay ku heshay jinsiyadda Maraykanka, ayaa xeer ilaaliyaha guud ee magaalada lagu magacaabo Detroit ee gobolka Michigan ee dalkaasi Maraykanka, Stephen Morvey, isaga oo mas-uul uu ka ahaa dacwadda Nadda, waxaa mar kale uu yidhi, ma jirto khatar amniga yaga kaga weyn in ruux shisheeye ahi uu ku guulaysto inuu been abuur uu ku helo jinsiyadda Maraykanka kadibna uu shaqo ka helo hay-ad aad u khatar badan. halkaa inoo joogto qaybta koowaad ee macluumaadka ku saabsan basaasadii ay Xisbullah ay ahayd basaasadii ugu horeysay ee ku dhex beeraan hay-adda sirdoonka ee CIA-da ee dalka Maraykanka. macluumaadyadani waxaa qoray Majdi Kamil, waxaana tarjumay Kamaal Axmed Cali. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.